السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتا قيمها يقدرين تمدن آد بندين سلام يا ميلك الصودي جلس وعطان ما أنت وحين الصود دبني جوري عصب ولا قد سي المجالات هرجيسة جارهان حافظنا اللحية لبعتن كشون gurigan faahfaahintiisa iyo macluumaadkiisa oo dheeraada hadda ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore muuqaalka like ku dhufo sidoo kalena commentiyada la wadaag fikirkaaga iyo ra'yigaaga marka dhamaysato gurigan waxaa laga dhisay dhul cabirkiisu yahay 22 mitir iyo 12 mitir waxa uu ku dhex yaalaa xaafado hore u dhisnaabuu ku dhex yaalaa oo balorkan hareeraha ayaa xaafado kale kaga dhigsan yihiin sii jeedka iyo soo jeedka iyo labada dhinacba wado ayaa hormarta marka gurigani waxa uu ku yaalaa xaafada qaalib loo yaqaano gaar ahaan oo ka tirsan xaafada 26 Juun gurigani waxa uu ka kooban yahay 4 qol oo hurdo ah qolkii hurdada weynaa oo leh bartiyada kabaha la dhiganayay suuli gudaha ah iyo sidoo kale barandihii yaraa dhexe gurigani sanadin sheegay waxa ku yaala xaafadaasi qaalib oo ka tirsan xaafadaha hadda aad kala loo dhisto ama sida weyn loo jecel yahay in loo dhisto waxa marta wado weyn oo u kacda dhankaas iyo waqooyiga u socoto laamiya qofkii arkay qaalib waa warkay xaafadaasi waa xaafad run ahaantii aad u qurux badan oo ku caana xaafadaha qaalib waxaa loogu magac daray masaajid ku yaala xaafada oo masjidu qaalib la yiraahdo oo masjid weyn loogu magac daray qolkan aynu hadda ku dhex jirnaa waxa weeye qolkii hurdada oo qalabkii iyo la qalabeeyay wayna ka soo baxnay hadda waxayna soo galay qolkii fadhigii iyo cuntadii fadhigii cuntadii weeyaan qolkan ay hadda ku jirnaa sanadii sheegay gurigani waxa uu ka kooban yahay 4 qolo hurda oo mid waa qolkii weynaa oo suuliga gudaha leh Allahumma salli ala Muhammad 3 qolo kale oo qolol caadi ah fadhigii cuntadeenu hadda aynu ku jirno iyo sidoo kale qol service oo dibadda ah kitchadi oo aynu mar dhow insha Allah iyadana kamarada ku qaban doono waxa uu kale u leeyahay gurigani gaari galbu leeyahay oo meeshii ama parkingkii baabuurta la dhiganayay hadda waxaynu soo galnay mid kamid ah musqulaha guriga gurigu leeyahay waa 3 musqulood musqusha weyn qolka fadhiga hurdada ku taala iyo tadhexe iyo sidoo kale dibadda hadda waxaynu dul maraynaa oo aynu muuqaalka la soo galnay kamarada ku qabanay qolkii kitchadaha cuntada lagu sameeyay gurigani sidan hore ku sheegay waxa uu ka dhisan yahay dhul gaaraya 22 mitir iyo 12 mitir waxa loo dhisay macmiil kamida macaamiisha shirkadda Baxnaan Construction Company oo aan maanta informationkeedii iyo stickerkeediiba aan bartayda ku soo dajiyay si aad ula xiriiraan engineer Nagiib oo engineerka shirkadda information fara badan iyo faahfaahin badan ay idin sheegi doona qof kasta guriga doono iyo cabirka uu doono iyo sidoo uu doonayna ugu sharaxi doono qaabka uu gurigaasi u dhismayo inta badan shirkadahan ka dhisan magaalada Hargeysa waxa dhisan guriyo run ahaantii aad u qurux badan oo guriyo aad u tayeysan dhismaha magaaladuna si fiican buu hadda u socdaa oo dadweynaha oo kala duwan ayaa dhisanaya guriyo ka dhisanaya meelo kala duwan shirkadani waxay ka mid tahay Baxnaan Construction Company shirkadaha magaalada Hargeysa aad ka u dhisa oo guriyahan casriga markaad gudahooda soo gasho aad ka u quruxda badan gurigani marka intuu cabirkiisa iyo qaabku u dhisan yahay waa qaab aad u qurux badan marka gudaha la soo galona wuxuu noqonayaa guri aad iyo aad u qurux badan oo run ahaantii ku cajab gelinaya waxa gurigani waa guri waxa loo dhisay sanadin sheegay macaamiil kamida macaamiisha shirkadda Baxnaan Construction Company waxa uu gurigani loo sameeyay in la kireeyo oo qalabkii wixii wax kasta dhameystiran way yaalaan oo saasa lagu kareenayaa si reerku uu soo galo reerka doonaya dad waxa jira guriyaha goglan raba oo muddo gaaban ama muddo yar dhexe ha noqoto oo doonaya guri qalabkiisu dhameystiran yahay
qalabkii wax lagu karinayay biyihii iyo weelkiiba falaasadii wax kastaba way yaalaan qolka aynu soo galnay qolkii hurdadu sariirihii waxayba way yaalaan marka qaabkaas gurigan loogu talagalay uu qofkii mulkilihii dhistay uu dhisay quruxda sare qaabka sare guriga loo sameeyay laambadahaas oo badbedeli karto marna aad ka dhigi karto buluug marna aad naaqusi karto qaar ka mid ah aad iyaga laftarkooda iska baktiin kartaba way leeyihiin rooga yara dhexe baa la dhigay guriga iyo falaawarada aadka u quruxda badan gurigu waxa weeye guri maasha Allah oo aad iyo aad u qurux badan akhyaartu haddii aad information dheeraad aad uga baahataan qaabka iyo qiimaha gurigan iyo sida loo dhisay iyo intuu ka dhismayo iyo waxaas oo dhan dhulkaada haysataan waxaad kala xiriiri kartaan WhatsApp-ka nambarada WhatsApp-ka leh ayaad kala xiriiri kartaan si waliba lambarka dambe ugu dambayso 42 ayaad kala xiriiri kartaan oo WhatsApp-kii leh WhatsApp nambarkii oo engineer Giib aad weydiin kartaan su'aalo iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qiimayaasha guryaha cabiradooda kala duwan iyo sidaad u doonaysaba intaba engineerku si fiican uu ku qancin doono marka waxaan idin rajeynayaa inaad muuqaalka aad information fiican aad ka hesheen hadaba haddii aad doonaysaan inaad wax ka dhisataan guryo dhulalkaad haysataan channelkana waxaa ku jira guryo aad u fara badan iyo muuqaalo kale oo hore aan soo galiyay waa daawan kartaan oo si baadbaari kartaan oo information fara badan iyo guryo kala duwan oo nashqado kala duwan ayaan soo galiyay muddooyinkii hore marka engineerkana sidaas oo la xiriiri doontaan waxaad kala xiriiri kartaan lambarka 42 ay u dambayso WhatsApp kale kuwa kalena koolashay waxaad ka garaaci kartaan ama WhatsApp-ka way leeyihiin muuqaalka like ku dhufo كومنتينا للوداق خيرين نبض قبائن يرجعنا يا واحد كذا يا ساسيو نبض قليو